waxaan doonayaa inaan ka hadlo dhowr qodob oo ku saabsan saadka. qodobka koowaad waxa weeye muhiimadda gaarka ee saadku leeyahay. saadku waxa uu maamulaa oo dhex mara in ka badan 80% GDP-ga ama dhaqaalaha Somaliland. adduunyada ma jiro dal dhaqaalihiisu ilaa xadka uu ku tiirsan yahay adeega shirkad gaar loo leeyahay ay kelideed bixiso. malaha waddanka u soo dhadhow Somaliland waxa weeyaan Kenya oo 35% wax ka yeeray GDP-gooda soo maro adeega lacagaha ee M-Pesa. kaana dowladda Kenya si ka duwan saadka ayay u maamushaa. marka horta sababtaasay tahay in looga hadlo saadku waayo wadaweyne wada saameeya. qodobka labaad waxa weeye adeega muhiimka bal horta yaa maamulo oo gacanta ku haya. anigu xogaalayaan u ahay oo muddo 13 sano ayaan si dhow ula socday. 10 sanana waan wada shaqaynaynay. waxaa adeega runtii toos u maamula oo awoodiisa leh inanka u dhalay Axmed Nuur Jimcaale ee la yidhaahdo Cabdiraxmaan. tusaale waxa uu ah muddo 13 sano go'aamadii ama xidhiirkii shaqee naga dhexeeyey oo ka soo bilaabmaya 2010 markii aan bilaabayay weerar rimid oo Cabdiraxmaan noo diiday inaanu la shaqayno saadka. Jabuuti baan ugu tegey isagaa ka soo horjeedsaday inaanu saadka la shaqayno. wuxuu noo soo bandhigay inaanu wakiil hoosaad ama sub agent u noqono xawaaladii Qaran Express oo markaasi hormood doonaysa inay iibsato, taasi oo la ogaa inay markaasi kacayso. marka anagu magweerimid waxa ay markii ugu horeysay saadka la shaqaysay 3 sano ka bacdi uun waqtigaasi oo shirkad kale aanu soo marnay. mar kale 2017 markii aanu ka bilownay Somaliland adeeg tijaabo ahaa oo walad ahaa, Cabdiraxmaan ayaa aad uga soo horjeedsaday oo xataa naga joojiyey SMS-kii ama fariimihii aan ku dirsan lahayn Telesom. oo waxay noqotay markaa in akhritaankii agadee waladka tijaabada ahaa waddan kale aan u geyno, xafiiskaan uga furray Hargeysa aan iska xidho. bari dhaweyd wuxuu dalbaday in weerar ay kordhiso khidmadda ay siiso saadka. tiina anaa kala hadlay muddaanu ka wada hadlaynay, isagaa go-aan ka lahaa. tiina siday doonayay bay noqotay in khidmaddii loo kordhiyo. marka tusaalooyinkaasoo dhan waxay muujinayaan inuu runtii isagu Cabdiraxmaan yahay qofka leh awoodda iyo go-aanka saadka. muddada 13 sano ah ee aan xidhiirka ama aan la xidhiirayay saadka, runtii aniga waxay ii muuqanaysay in aanay isku dan ahayn saamilayda macaashtoonka ah ee Telesom iyo mulkiilahan awoodda badan oo isagu laga yaabo dana ganacsi oo aanay ku wada jirin Telesom inuu leeyahay. qodobka saddexaad waxa weeye maxaa xal ah. anigu waxaan runtii u arkaa xalku inuu ku jiro dadka oo qaata adeegyada kale ee e-dahab iyo walletka Premier Bank oo 3 adeegba wada isticmaala. 3daasi adeeg oo ku xidhan 3 baan ee ugu weyn Somaliland. anigu ma qabo qofna in isku halleeyo inuu adeeg keliya isticmaalo. waynu ogeyn wixii Hargeysa ka dhacay sanadkii hore markii xadhigga saadka la jaray, dhibaata ka dhalatay. waxaa ganacsigiiba mar qura wada iswada taagay. marka sababtaasaabay u tahay marka laga tago lacagaha dhowaan Cabdiraxmaan u goostay in saadka laga joojiyey dibadda ka imanayey, taasoo keliya iyo dee dhaqaalihii waddanka oo dhammi inuu meel qura ku wada jiraa runtii sax maaha. taasaaba runtii muhiim dhalinayso oo in dadku adeegyo kale isticmaalaan. waxaa kaloo runtii arkaa in fursad ganacsi ka jirto in adeegyadaasi si lacagaha la isaga diri karayo. dhibaatada imika taagan waxa weeye qofka saadka haystaa
dahab lacag uma diri karayo, premier wallet lacag uma diri karayo. dee taasi markaa kuma xidhno uun shirkadda samaysay ee waa ganacsi kale oo ciddii doonaysa ay geli karayso oo dadka khidmad ay ka qaadi karayso. marka taasi waxay sahlaysaa dadkii lacagtoodii inay dee si fudud kuwa kalena ay ugu diri karayaan. anigu markaa fariinteedu waxa weeyaan kusoo koobayaa dadka saadka haystaa labada adeega kale iyo dahab iyo premier wallet ha isticmaalaan si loo yareeyo lacagaha wareegaya doolarka iyo shilinka somaliland ee ku soo wada ururay saadka.